mawjadu miyaanay jiidhaynin markay mawjadu xagga ka soo dhacdo dee intan yar intay qaato miyaanay xag u daray maya laagan yari kolba dhinacaasunbuu ula soconaya dhanka mawjadu socoto luuqaasunbaa u dhaxaynaya isku darsami maayaan badda kasaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan intaa biyo u dhaxaysa luuqa dhanun bay ula gurgureen laakiin meel fadaadoobaysa ma jirto biyuhu ka talaabayaan tan say u qiyaasaan bay waagii dambe waxay soo kaxaysteen markab baabul mandabka agtiisa bay keeneen exactly meeshii bay istaageen dabeetana biyaha koob marka dhinaca laga daro markabka iyo marka dhinaca kale markabka laga daro waa laba biyo oo kala nooc ah hal markab oo meel taagan oo badda dhinaca marka laga soo darsaday marka dhinaca laga soo darsado waa laba badood oo kala nooc ah waa bad dhanaanka kulaylka muluuxada density-ga everything uu ka gadisan yahay baddan kale labadaba lu'lu'yo marjaanka waa laga saarayaa labadaba yani wuxuu quraanku ka waramayay waqtiga bale waxyaabaha cajabta ay culimada qaar ku tilmaamaan waxa kamid ah xayawaanaadka dhan qura laazima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaar ah ku dhaqan oo muluuxada iyo density-ga iyo xaraarada gaarka la dhaqma xaqaana nooc gaar ah ku dhaqan waxa ay nusuustan tilmaamaysaa nabi maxamed waqtigiisa salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa lama ogay quraanku wuxuu ka waramayaa wax tiro badan kownkan iyo siduu soo bilaabmay duqaankii iyo wuxuu ka samaysnaa waxa uu ka waramayaa buuraha kan iyo nooca ay u samaysan yihiin iyo in buurtu ay wata tahay oo in saro taagan iyo in hooso taagan ay tahay inay buurtu rawaasi tahay oo dhulka kan inaanu gilgilanin yani buurtu ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa in buuraha sababta loo taageeba ay tahay maxay la tamida bikum inaanu dhulku inala dheeldheeli hadii buurta la yahay bay leeyeen maxaa dhici lahaa bere hore dhulku bayna daadin lahaa yani dhulka marka hoos loo kaco xagga hoose waa cajiin waa kulayl marka qasharadan sare meelaha ay ugu koobantay 70 kilomitir meelaha wax yar bay ka dheertay marka 70 kilomitir meelaha la dhaafo cajiin hoose oo kulul oo isla rogaya loo tagaya buurtan sare intay kor u taagan tahay in ka dheer bay hoos jirtaa bay leeyihiin haddii aanay inta ay hoos jirtaa jirin gudahan cajiinka dushani way gilgilmi lahayd wuxuu noqon lahaa qolof khali wareegta khali wareegan waxa ka ilaalinaya watadiyada tan dhan walba kaga soo jira ayaa wuxuu ka ilaalinaya maxay inay khali wareegto waa masaa'il dhawaan la ogaaday yani waxaynu baabkan hadii la bilaabo waxaynu odhan karnaa maalin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ba waa ka warrami karnaa waxa maanta kutub ay culimadu ku qoreen marka laga tilmaamo ama basharka ha ahaado maqalkiisa ha ahaado asxaabul kaafka quraanka ilaahay kaga warramaya ha ahaado xidigahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo say u sameeyeen ha ahaado inay kala fuqeen iyo bariga hore inay isku dhagsanaayeen ha ahaato biyaha iyo siday dhulka ugu jiraan ha ahaato roobka iyo siduu soo da'o iyo daruuraha iyo noociyaadka kala leeyeen yani quraanku wuxuu ka warramayaa daruuraha iyo noociyaadkiisa iyo qaabka roobku uu kala deeyo kala nooca daruurta rukaamiga iyo tagayru rukaamiga daruuraha barafka wata iyo kuwan barafka wadan hilaaca kuwa leh iyo kuwan hilaaca wadan intaba quraanku uu ka warramaya laakiin bini aadamku goormu ogaaday wuxuu ogaaday waagii la soo saaray transistorska يعني بهالدان قلدان electronicsku transistorska yarara isticmaalaan transistorskana waxyaabahay faa'iideeyeen marka technology degdeg waxa kamid ah in raadaaradan waaweyn la sameyn karo raadaaradan waaweyn markii la sameyn karay waxa suurta gashay waxa cirka maraya ama hawadan sare maraya in maxay la arki karo more practically la daawan karo bal waxan sidoo foom garoobayo ama saddeed duulimaadkan iyo diyaaradahan xagga sare hawada sare qabanaya waxay yiraahdaan dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyay ilaa diyaaradii dagaalka labaad duniduna halkan dhow bay carari jirtay meel fog may tagi jirin halkan bay ka bararaflay jirtay intii ka dambeysay 1948 ayaa transistorskan markii la helay waxa kan baa waxa suurtoobay in la sameyn karo raadaradan waaweyn waxa suurtoobay diyaaradahan dheereeya waxa kan inay soo kacaan waxaasi waxay abuureen in la arki karo daruurtan iyo siday u samaysato ilaa ay ka noqotay nusuusta quraanka siday u sheegaysay
nusuusta qur-aankii sida ay u sifaynayso. walidalik waxaynu odhan karnaa masaladani waa almucjiza alcilmiya fi lqur'aan aw alicjaaz alcilmi fi lqur'aan. waa fanni runtii casriga kan aada loo daraaseeyey oo daraasaadkiisu alfaadda xadiidka markaad aragto ama alfaadda qur-aanka lafdi baad arkaysaa nin caalimi uu cilmi dhan kaga warramaya. shalay aan akhrinaya lafdu ljinaaba. janaabada maxaa la yidhaha looga maydho nin caalim muslima oo ku takhasusay bii'ada iyo talawudkeeda oo ka warramaya qofku markuu jinaaboobo waxa ku dhaca oo inay maydhashadu laabud tahay haddii kale inaan nadaafadaasi imanaynin ka warramaya yacni taxta ayi shacra. nebigu sooma tilmaamin tin kasta hoostiisa janaaba ku jirta in qofku meel kasta biyaha gaadhsiiyo ka maydho. scientifically bu wuxuu caddaynayaa shacro kasta hoosteeda in janaaba joogto. yani markaad aad tatabuucdo waxyaabahan daraasaadkan cilmiga ee xadiidka la tilmaamayo. maalin dhaweyd baan iyana waxaan akhrinayay basarka iyo jinsiga cilaaqada ka dhaxaysa iyo qadul basarku inta uu faa'iideeyo ama se daawashada waxaan sexiska la daawadaa inta ay wax kharibto ka warramayeen in caalimo muslim. idan nusuusta qur-aanka markaad eegto iyo nusuusta axaadiista nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka sugnaatay waxaad arkaysaa adilla aad u tiro badan oo runtii aan odhan karo waa adillo kordhinaysa iimaanka. ilan iimaanku yaziid wayanqus. iimaanku waanu daciifa waanu koraa. wuu korayo biladilla buu ku koraa iyo bitaaca labadaba. biladilla wuu ku koraa. masalaad hal daliilu haysatay haddaad 100 daliilu hesho sugnaanshiyaheedu wuu kaaga sii badnaanayaa siday markii hore kugu ahayd. idan biladilla ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisa waxaa daliilu ah makhluuqaadka alla abuuro dhan daraasadooda. ayi makhluuq la daraaseeyaa oo kownkan yaalla waa daliil ku tusinaya maxay waxdaaniyat illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay iyo kalinimadiisa. idan caqiidada qofku way raasukhaysaa way si bitaacana waa ku raasukhaysaa. waxaan jeclay inaan iska soo koobo waxaan leenahay uun mas'alada tani waa mas'ala runtii daraaso iyo baxthi badan u baahan laakiin aynu ku koobaynoo leenahay marnaba suurtagal maaha inay iskhilaafaan xaqiiqa cilmiya oo xaqiiqo ah oo aan ahayn theory iyo nadariyaat iyo wax la filayo iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. yani wuxuun bay ku xidhan tahay haddaad aragto iyagoo si uun isu khilaafsan inta ugu badan leh ama nadariyadan sayniska aan sax ahayn ama ayadda sidan aad u tafsiiraysaan sax ahayn ama si aqoonta basharka aan weli meeshii gaadhin. maalan ilmuhu lab iyo dhadig kuu noqonayo maxaa sababa? saynisku in badan buu waday kolba waxbaa la sheegi jiray. bariyii hore sixirada mar baa la odhan jiray haddaad waxaa samayso markaad intaa samayso haddaad islaantaada u tagto inamay dhalaysaa. waa uun aqoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday hadday islaantu waxaan cunto ilmay dhalaysaa hadduu ninku waxaan cuno ilmuu dhalaya waa la soo waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yidhaahdaan bes islaantu shaqaba kuma leh kromsomiskeedu waa egas shaqo kuma leh waa uun ninka